waxaa maanta soo gabagabowday gogashii nabadeynta ahayd oo socotay muddo 28 cisho oo ay dhigeen beesha Gaboobe Maxamuud oo degmooyinka ay degto ay ka mid tahay magaalada Laaso Curdan oo hadda gogasha la dhigay. Labada reer ee gogasha nabadeynta loo dhigay ayaa kala ahaa Cabdi Maxamuud iyo Nuur Axmed oo deegaan ahaan kala dega Taleex iyo Sarmaayo oo muddadii ugu dambeysay ay ka dhaxaysay xurguf colaadeed oo aan daba dheerayn. Gogasha nabadeynta oo ay dhigeen Gaboobe Maxamuud ayaa waxaa garwadeen ka ahaa Caaqil Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalo iyo odayaasha beesha Gaboobe Maxamuud. Gogasha nabadeynta iyo wada xaajoodka labada reer ayaa socotay muddo ka badan 28 cisho iyagoo ugu dambeyn gogashu ku soo dhamaatay waji wanaag iyo walaalnimo. Gabagabadii munaasabadan quruxda badan ayaa waxaa goobjoogayaal ka ahaa odayaal magac iyo miisaan weyn leh sida qayb ka mid ah cuqaasha beesha u gaaryahan iyo wakiilka Garaad Saleebaan Garaad Maxamed iyadoo munaasabada uu furay Caaqil Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalo. qaybinayna maanta waxaan leeyahay ergada labada beelood ee shirka halkan loogu hayay ee nabadgelyada halkan u yimi ee doonaya inay wanaag ka taliyaan ee doonaya maslaxadooda iyo wanaaggoodii soo jireenka ah inay soo celiyaan raba inay wixii cilada iyo qodox meesha ka saaraan. waxaan leenahay annana idiin daraan mayno haddaanu khaldanno naga raalli baad nagaga ahaanaysaa laakiin naga qaata haddaanu saxno ilaahay bay ka ahatay xaggiisa naga qaata. waxaanu rajaynaynaa inaad qaadan doontaan baanu idinka rajaynaynaa. waa codsi waa tullimo waa diirnax waa wanaag iyo qurux aanu doonayno in cid waliba oo dadkeenna oo deegaankeenna ahay ay nabad ku wada noolaato. waxaanu doonaynaa oo kulligeen wada rabnaa dhammaanteen ciladaha inagu dhex jira inaynu sidii loo saari karo aynu isaga saarno. waxaynu rabnaa inay noqoto tani bilowga inoo noqoto inay bilow fiican inoo noqoto inay soo baxdo magac wanaagsan. maanta halkan aynu fadhinaa inagu waa fadhinaa laakiin indha badan baa ina soo egaya dhaga badan baa waxay dhegaysanayaan talow maxaa ka soo baxay talow maxaa la isyidhi talow ma la israacay talow arrintii ma la isku aqbalay. ilaahay waxaanu ka rajaynaa kuwii la isku aqbalay furitaan kadib go'aamadii garsoorka iyo gudiga iyo siduu xukunku u dhacay ayaa goobta lagu soo bandhigay. gudiga dhexdhexaadinta labada beelood ee Cabdi Maxamuud iyo Nuur Axmed Wacays Cali magacyada gudigana wad haysaan baan filayaa. sida ay dad badani la socdaan waxaa magaalada Laaso Curdan muddo bil ku dhow ka socday shir nabadeed lagu dhexdhexaadinayay laba qoys oo walaalo iyo deris intaba ah. gogashaas nabadda waxaa dhigay beesha Maxamed Maxamuud ama Gaboobe oo ay magaalooyinkeeda ka mid tahay magaalada Laaso Curdan. shirka oo marxalado kala duwan soo maray isla markaana ay dhexdhexaadinayeen gudiga ugaadhiyahan siyaad oo ah 11 xubnood. waa gudiga ay magacyadoodu kor ku xusan yihiin. waxaa 5 bisha 7 2019 ku soo biiray 3 sheekh oo laascaanood looga dalbay kadib markii laga maarmi waayay. 3 sheekh oo kala ahaa Sheekh Axmed Cabdulle Axmed, Sheekh Axmed Cabdulle Maxamed, Sheekh Cabdi Naasir Xaaji Maxamed Ali Cabdi Naasir Faraid iyo Sheekh Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Saalixi. go'aanka gudiga qodobada la isla meel dhigay waxa ay kala ahaayeen kuwan hoos ku qoran. dilka ka dhacay soolka Sarmaayood ee lagu dilay Xasan Bucurde Ismaaciil waxa ay gudigu isku raacday in la fuliyo xukunkii ka dhacay magaalada God Aalo ee lagu xukumay inay garabka Cabdi Maxamuud ka bixiyaan 120 halaad oo geel ah $20,000 iyo gabar godob reeb ah oo ay siiyaan garabka Wacays Cali. qodobkaas xukun dambe loogu noqon maayo. qodobka labaad dilkii ka dhacay magaalada Taleex ee lagu dilay Cabdirashiid Cabdilaahi Cige markii ay gudigu qodobadan hoos ku qoran eegtay waxa ay isla garteen sidan soo socda. magaalada Taleex ee lagu dilay Cabdirashiid Cabdilaahi Cige markii ay gudigu qodobadan hoos ku qoran eegeen waxa ay isla garteen sidan soo socota. xarafka ba kadib markii ay gudigu u cadaatay in Cabdirashiid loo dilay aano qabiil oo ku saabsan Xasan Bucurde Ismaaciil oo soolka
sarmaayo lagu dilay xarafka ta kadib markii ay guddiga u caddaatay in cabdirashiid lagu dilay dilwadareed ay garabkiisu caddeeyeen in xarafka ja kadib markii ay guddigu ogaatay in dilkii kalcad ka dhacay ee lagu dilay buraale cabdulqaadir warsame ee aanada ahaa dilkaas oo ay labada nin ee kalcad iyo taleex lagu kala dilay isku ujeeddo loo dilay xarafka xa kadib markii ay guddigu dhegaysteen doodihii iyo dacwadihii ay labada garab jeediyeen islamarkaana ay guddiga u caddaatay inaanay jirin xoolo si wada jir ah loo kala qaatay ama heshiis dhammaystiran oo la isla gaadhay xarafka kadib markii ay guddigu arkeen qodobadan kor ku qoran waxa ay go'aan ku gaadheen inuu cabdirashiid cabdilaahi cige la xukun yahay xasan bucurde ismaaciil oo ahaa ninkii cabdirashiid loogu aaray ee loo dilay ninkaas oo xukunkiisu ahaa 120 halaad 20 kun oo dollar iyo gabadh godob reeb ah kadib markii ay guddigu ka qiyaas qaateen dhammaan qodobada ay cabdirashiid isku midka yihiin iyo heshiisyadii xukuumadii laga gaadhay guddigu waxa ay go'aamiyeen inuu cabdirashiid cabdilaahi cige la xukun yahay raggii lagu xukumay god aalo iyo kalcad waxaana laga bixinayaa 120 halaad 20 kun oo dollar iyo gabadh godob reeb ah waxaana bixinaya garabka wacays cali qodobka afraad dilakii ka dhacay laascaanood ee ay ku dhinteen labada marxuum ee kala ahaa muuse boos ismaaciil iyo cabdilaahi axmed maxamed ba guddigu waxa ay ka gaadheen go'aanadan hoos ku qoran ta kadib markii ay garabka cabdi maxamuud qirteen dilkii muuse boos islamarkaana uu cabdilaahi axmed maxamed sifo sharciga islaamka waafaqsan ugu caddaaday wacays cali guddigu waxay xukuntay in labadaas nin ee kale ah muuse boos ismaaciil iyo cabdilaahi axmed maxamed in mid walba laga bixiyo magdhan 120 neef oo geel ah iyo gabadh godob reeb ah ganaax lacageedna ma jiro doodii wacays cali ee ahayd inuu jiray duulaan sarmaayo ilaa laascaanood xidhiidhsanaa oo lagu dilay muuse boos ismaaciil qodobkaas oo cabdi maxamuud lagaga yeeshay dhaar iyo dilxumadii iyo dayicii ay cabdi maxamuud ka sheegteen dilkii cabdirashiid cabdilaahi cige oo isna dhaar wacays cali lagaga yeeshay islamarkaana ay labada garabba inay dhaartaan aqbaleen guddigu waxa ay labadaas qodob ee dhaarta ku soo ururiyeen inay tuurto wayna tuurta ururinta go'aanka labada garab ee cabdi maxamuud iyo wacays cali waxaa dhinac walba lagu xukumay inay bixiyaan xoolo dhan 106 halaad oo jifi ah 20 kun oo dollar iyo 2 gabdhood oo godob reeb ah labada dhinac mid walba intaasaa laga rabaa habka xoolaha loo kala bixinayaana waa sidan ba cabdi maxamuud waxaa laga rabaa inay bixiyaan 2 jifiyood oo dhan 106 halaad 20 kun oo dollar iyo 2 gabdhood oo godob reeb ah xoolahaas oo kala ah xarafka ta sidii hore loogu xukumay xasan bucurde ismaaciil waxa ay ka bixinayaan 53 halaad oo jifi ah 20 kun oo dollar oo ganaaxa iyo gabadh godob reeb ah xarafka ja muuse boos ismaaciil waxa ay ka bixinayaan 53 halaad oo jifi ah iyo gabadh godob reeb ah wacays cali waxaa laga rabaa inay bixiyaan 2 jifiyood oo dhan 106 halaad iyo 20 kun oo dollar iyo 2 gabdhood oo godob reeb ah xoolahaas oo kale ah cabdirashiid cabdilaahi cige waxa ay ka bixinayaan 53 halaad oo jifi ah 20 kun oo dollar oo ganaaxa iyo gabadh godob reeb ah xarafka ja cabdilaahi axmed maxamed waxa ay ka bixinayaan 53 halaad oo jifi ah iyo gabadh godob reeb ah labada garab mid walba waxaa lagu xukumay inay xoolahan ku bixiyaan muddo 4 bilood ah taariikhdaas oo ka bilaabanaysa maalinta go'aanka lagu dhawaaqo xukunka kadib waxaa hadallada la siiyay labada reer ee cabdi maxamuud iyo nuur axmed iyadoo hadallada iska daba qaatay ayay sheegeen labada reerba inay qaateen halka ka dhacay saddex masalaba waa u qaadanaynaa haddii aanu nahay beesha cabdi maxamuud waxa weeye haddaanu nahay beesha nuur axmed annagu horta nabadda waanu wada qaadanay reer quri ma qaadan
kulli intaanu leegnay waanu qaadanay. ugu dambeyn waxaa xafladda soo afmeeray wakiilka garaad Saleebaan Garaad Maxamed. barakeeyo khayr ha siiyo. waxaynu ku soo gabagabaysanaa xafladda wadhamayho wixii la xukumaha la fuliyo. wixii la xukumaha fulin awal wuxuu yiri nabadda afkaanu ku qaadnaa awal wixii lagu xukumay in la helo baa loo baahan yahay. Muuna Axmed Cabdi Muuna Maandeeq